munaasabadan ayaa lagu daahfurayay wejigii labaad ee mashruuca tacabkaal ee horumarinta wax soo saarka dabiiciga dalkeenu leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga oo dhammaan laf-dhabar u ah ilaha dhaqaalaha dalka. Mashruucan waxaa maalgelinaya bangiga Amal waxayna u talagaleen in sare loogu qaado wax soo saarka dabiiciga ee dalkeena. Amal Bank waxaa ka go'an marka maalgelinteeda sidaan hore u soo sheegnay xooggeeda inay u jihayso horumarinta wax soo saarka waddanka sida beeraha, kalluumeysiga iyo xoolaha nool iyo waliba warshadaha iyo sida iyo tamarta oo ah warshadihii iyo tamartii iyo wixii la isku daray. Dhinaca beeraha waxaan maalgelinaynaa qalabka beeraha sida cagafyada, matoorada, baabuurta iyo cilmi baarista oo lagu sameeyo miraha beeraha iyo meelaha cimilooyinka qaabka ay beeruhu u bixi karaan iyo dalagyada. Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kheyraadka dabiiciga oo horay uga faa'iideystay mashruucan horumarinta ayaa sheegay in loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee fahmaan muhiimadda waxyaabaha dalkeena ka soo go'a taasoo dhiirigelin u ah ganacsatada Soomaaliyeed. beer dham 3 bilood la sugay galleeyda una daamaano laakiin waxa meesha yaala waxa waaye wixii soo baxo meel la jeeyba malab wali ad beerta kiin soo baxo waxa la faday in ari warshad aan haysato kiilad lin hiro maaragtay meelo qaar la jeeyo suuq lin jeeyo suuq male oga hadda suuq waxaan in naqatay beerta inaan una taabno markii caana eeba maaragtay inaan soo qolobano suuq sheegno. anigu waxaan ahay gudoomiyaha shirkadda Hibaad Fishing Company waxay branch ku lahayd waya Ras Kamboni, Maranaani, Kismaayo, Jamaame, Baraawe, Marko, Adale, Warshiiq, Kudkudaaley, Jaanyare waxay ku taalaa ceel dheer wax ka geysaa 40 kilomitir gaan ay ka soo beeskan xamar wax marka waxaan rabaa inaan soo jiidno maqaayada aan wax siino ama aan si u shaqeynaa amal kale oo hadda haysanaa ma jirto. Sheekh Cabdulle Maxamed Muuse maamulaha bangiga Amal ee koonfurta bartamaha dalka ayaa sheegay in mashruucan uu yahay mid kaabaya wax soo saarka dalka si kor loogu qaado kheyraadka dalkeenu leeyahay. sababtoo ah waxa weeyaan bangigu ma hormari karo haddiina adinka hormarin. marka waxaan rabnaa adinka inaadin hormarino oo ganacsigii xoolaha maaragtay kalluumeysiga iyo waxa weeyaan iyo xoolaha beeraha inaan maaragtay hormarino horumarkeenu waa horumarkaaga saas waaye bangiyadu haddaynan hormarin dadku waxa weeyaan horumarkiisa waxa weeyaan waa lugaa ka go'an. marka waxaan diyaar u nahay inaan hawlahan maaragtay aan idinla qabanno oo wax soo saarkii waddanka beerihii kalluumeysigii iyo xoolihii. Cabduqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.